Ma ogtahay potassiumka in uu yahay macdanada ugu muhiimsan jirkeena? Sidoo kale ma ogtahay potassiumka kiniinkiisa in uu ku siin karin inta aad u baahan tahay maalintii? Potassiumka caafimaad ahaan kiniinigiisa kaliya waxaa la ogol yahay in laga sameeyo 200 gram oo kaliya. alxamdulillaah mar walbo allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh. bismillaahi alfataaxi alcaliim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. eheli asxaab waa idiin salaamay meel walbo oo dunida ka joogtiin iyo xili walbo oo idintaa waxaan idiin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina. soo dhawaada kusoo dhawaada qalbi furan. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow kusoo dhawow qalbi furan. maantana waxaa noo wadaa macdanka potassium faa'iidadiisa haddii uu jirkaaga ku yaryahay, calaamadaha aad dareemi kartid, sidoo kaleeto cuntooyinka laga helo potassiumka. daawo videoga bilaaw ilaa iyo dhammaad sida wax walba aa u fahamtid aadna uga faa'iidaysatid. potassiumka waa macdanka ugu muhiimsan jirkeena. macdankana hadduu jirkaaga ku yaraado dhibaatooyin badan ku imaan karo, jirkaagana vitamino badan iyo macdano badanbo ay ku yaraan doonaan. marka sidaas darteeda waxaa loo baahan yahay mar walbo inaa potassiumkaaga aad la socotid oo aad ogaatid, mar walbana aad isticmaashid waxyaabaha markaaseeti potassiumka maalintaada ku buuxinayo. potassiumka waa macdan ka mid ah macdanada jirkeena ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu maneystay, alxamdulillaah. wuxuuna ka mid yahay macdanada ugu muhiimsan ee jirkeena uu u baahan yahay. haddii uu jirkeena ku yaraadane oo markaaseeti vitamino iyo macdano badan jirkeena laga yaabo in ay ayagana ku yaraadaan. marka waxaan ka bilaabeynaa calaamadaha qofka uu dareemi karo haddii uu ku yaryahay potassiumka. calaamada ugu horeyso waxaa waaye in aad dareemtid daal, caajis iyo nashaad la-aan ama firfircooni la-aan inuu qofka uu dareemayo. calaamada labaad waxaa waaye in uu jirkaaga biyaha uu ku celinayo oo markaaseeti adiga dhan aa barbarareysid. qofka markuu jirkiisa biyo ku ceshoomo ama biyaha uu isceliyo waxa uu naqanayaa barar ayuu naqanayaa. qofka lugiha badana lugaha iyo gacmaha ayaa laga arkaa bararkaas. badanaane markuu jirkaaga biyahaaseeti uu isku celiyo amaba uu isku xero, micnaheeda waxaa waaye inuu jirkaaga sodiumka ku badan yahay. sodiumkana waxaa waaye macdan asigana muhiim ah oo asigana waa maadada cusbada uu ku imaado. haddii markaaseeti potassiumkaaga uu yaryahay oo sodiumkaagana uu badan yahay, waxaa dhaceyso inuu jirkaaga cusbadii iyo biyihii sidaas ku keediyo. sidoo kaleeto taasi badanaa waxay ku dhacdaa dadka dhiigkarka qabo. dadka dhiigkarka qabo waxay sameynayaan cusbada ayay jirkooda ka yareynayaan, kadibna biyo badan ayay cabayaan sida markaaseeti uu uga dhaqmo cusbadii, balse potassiumkii ayaa yaraanayo. kadibna waxaa dhaceyso in uu markaaseeti qofka dhiigiisana degin. calaamada kaleeto xigto waxaa waaye aa ku ogaan kartid in uu jirkaaga potassiumka ku yaryahay, in uu wadnahaaga aad u garaacmayo, sid xad dhaaf ah uu u garaacmayo. calaamada kaleetana waxaa waaye inaad dareemeysid in ay ku xanuunayaan jirkaaga oo dhan, sida xididaha iyo lafaha, iyo mararka qaarne ay ku garaacmayaan amaba ku kabaabiyoonayaan. dadka way kala duwan yihiin, qaabay u arkaan. dad way kabaabiyoonee, dadna way garaacmee. marka biniaadanka isku mid maahan, laakiin calaamadaha ugu muhiimsan hadduu jirkaaga low potassium uu yahay amaba potassiumkaaga uu hooseeyo waa calaamadaha aad dareemeysid. haddii calaamadahaas xitaa calaamad isku mid ka mid ah aa aragtid, isku dadaal sida markaaseeti aad potassiumkii kugu yaraay aad kor ugu soo qaadid. faa'iidooyinka uu potassiumka leeyahay maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah in uu dhiiga saxayo. haddii potassiumkaaga uu saxan yahay, wuxuu caawinayaa in uu sodiumka banaanka usoo saaro. markaaseetina dadka dhiigkarka qabo dhiigooda wuu u yara xasilayaa. sidoo kaleeto potassiumka wuxuu u fiican yahay dadka
sokorta qabo iyo sidoo kale wuxuu ka hortagaa sokorta oo sababtoo ah insuliinka ayuu saxaa. maado walba oo jirkeena ku jirto maadada kale aaday ugu baahan tahay, aadayna ugu muhiimsan tahay. haddii aan ugu cusub tahay, vitamino badan iyo macdano badan waan kasoo hadlay, sida jirkaaga hadday ku yar yihiin calaamadaha aad dareemaysid, sidoo kaleetana waxyaabaha aad ka helaysid. sidoo kaleeto faa'iidada potassiumka waxaa waaye wax walba oo jirkeena ku jiro oo markaaseeti shaqeynayo ayay aad iyo aad muhiim ugu tahay, sida maskaxda, beerka, kiliyaha iyo wadnaha. dadka ugu badan yaa waaye oo markaaseeti potassiumka ku yaraado. dadka ugu badan oo potassiumka ku yaraado waxaa waaye dadka aad sportiska u ciyaaraan oo kadibna aad u dhididayo. dadkaaseeti markuu dhididkaas badan ka baxo waxaa loo baahan yahay in ay biyaha ku darsadaan wax macdan leh iyo wax yar oo cusbo ah. haddii kaleeto potassiumka aad iyo aad ayuu hoos uga aadayaa. iyo dadka caadi ahaanba mar walba dhidido, khaasatan dadka lugaha iyo gacmaha ka dhidido, dadka jirka ka dhidido oo markaas ayaga oo hool xitaa ay haynin ama ordin oo dhididayo. potassiumka jirkeena ilaa intee uu u baahan yahay? wuxuu u baahan yahay 4700. waa macdanka ugu badan oo markaaseeti jirkeena maado badan oo u baahan ayuu ka mid yahay. sidoo kaleetana kaniinina qofka ma isticmaali karo, sababtoo ah kaniiniga asiga oo dhan ayaa 200 garaam ah. markaas waxay noqonaysaa ugu yaraan intaasoo xabo oo kaniini inaa cuntid, mana dhici karto. balse alxamdulilah, nimcooyinka allah subxaana watacaala arlada noo soo dhigay ayay ka buuxdaa potassium. qofka haddii maalintii dhowr nooc oo cuntooyinkaas potassiumka leh uu cuno, way soo caawineysaa oo markaaseeti potassiumkiisa mar walba way u saxnaaneysaa. sidoo kalena potassiumka qofka inuu ku bato ma fiicno oo ayadana dhibaatooyin ayay ku keenaysaa. wax walbo xadkii loogu talagalay hadday dhaafaan amaba ka hoos maraan, jirkeena dhibaato ayay u keenaysaa. cuntooyinka laga helo potassiumka aaday u badan yihiin, balse kuwa ugu muhiimsan ayaan soo qaaday. insha allah video kalena kaliya waxaan ugu soo hadlayaa cuntooyinka potassiumka laga helo bis, maadaama hadda videoga aan kusoo daray faa'iidada potassiumka iyo qofka marka uu ku yaryahay. sidaas darteed videoga wuu sii dheeraanayaa. wuxuu ku jiraa mooska, balse mooska aad iyo aad ayuu ugu yaryahay. adiga waxaa ku jiro 300 oo garaam oo keliya. waxa ugu badan oo potassiumka ku jiro waa beetrootka ama baytaraafka, qof walba siduu u yaqaano. waxaa ku jiro 1000 iyo wax la jiro ayaa ku jiro. sidoo kaleeto waxaa ku xigto afukaadhada ayadana waxaa ku jirto 900 ayaa ku jirto. marka haddii maalintii qofka xabad moos, xabad afukaadho, ansalaato badan hadaa cuntid, waxyaabaha cagaarka dhan ayay ku jirtaa. koostada, ansalaatada, barokoliga, yaanyada caadiga, yaanyada xataa hadday karto macdanada kama dhimanayaan, kaliya vitaminka ayaa badanaa dhinto. markii qofka vitaminkiisa kor uu usoo qaadayo, waxaa fiican cuntada karinta inuu ka badinin, balse macdan haduu yahay, macdanka ciyow ma dhimanayo. marka sidaas darteed yaanyada ayadoo la kariyay, ayadoo ceeriinna waa cuni kartaa. sidoo kaleeto waxaa ka heli kartaa hilibka, waxaa ka heli kartaa malaayga, salamka iyo malaay nooc walba uu yahay waad ka helaysaa. sidoo kaleeto potassiumka waxaa ka heli kartaa digirta noocyaheeda kala duwan, sidoo kaleeto sabiibka. sidoo kale waxaa ka heli kartaa baradhada ama bataatiga, qof walba siduu u yaqaano. baradhada caadiga cuntada lagu darsado iyo bataati macaanka mid kala dhaho. sidoo kaleeto qudaarta cagaaran nooc walba ay tahay. sidoo kaleeto ukunta waa ka helaysaa. loosyada noocyahooda kala duwan oo dhanaa ka helaysaa. noocii rabtid cun adiga, balse looska nooc walbo ayaa ka helaysaa. sidoo kaleeto waxaad ka helaysaa potassiumka mirooyinka sida chia seed, flax seed iyo sunflower seed amaba gabaldayaha mirihiisa. iyo sidoo kaleeto
bocorka mirihiisa ayaa ka helaysaa. Allahu akbar, alxamdulillaah. ilaahay ayaa mahadaas iskale oo nimcadaaseti dhan nagu maneystay. kuwii ka faa'iidaystana ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo. fadlan videogan hadduu kusoo gaaro sii sheer garay sida dad badan ee uga faa'iidaystaan. sidoo kale waxaa rabaa inaan idiin sheego 2 qofood potassiumkooda ilaa ay dhakhtarkooda la tashtaan, ma ahan inay kor u qaadaan dadka kiliyaha ka xanuunsan iyo dadka wadnaha ka xanuunsan. labadaas qofood ma isticmaali karaan waxyaabaha potassiumka ku badan, sababtoo waxaa laga yaabaa inuu dhibaato usii keeno. waa rajeynayaa videogeena maanta inaad ka heli doontiin, kana faa'iidaysan doontiin hadduu idiin soo gaaro. haddii intaan nala soo gaartay daawado daacad ayaa tahay, jecel inuu wax un faa'iidaysto, waana ku mahadsan tahay. asxaabta carartayne ayaga ayay faa'iido la-aan ku dhacday. inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa nabad iyo jacayl. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaano allah.